aragtay runtii siyaasad xumo iyo walaac iyo walbahaar xooggan soo wajahay kadib doorashadii xalaasha ahayd ummadda Soomaaliyeed raas kambooni raas caseer dhaxdoodii ay ku dooratay madaxweyne oo maanta aan isdhihi karno kaliya yani madaxweynihii ummadan Soomaaliyeed mideen lahaa bilcagsi ayaga waxaa ku soo ziyaaday walaalaha Somaliland walwalba ugu soo ziyaaday doorashadii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii Allah subxaanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay Somaliland وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا محمد عبد الله فرماجو يعني نين wax u dhimi doono ummadda Soomaaliyeed midnimadeedii maahan yani dhibbaad filinaysaan dhibbaad saadsanaysaan oo maalin walba waana la soo weerarayaa yani dhibbaan ugu dhacayaa Soomaali cunaqabteen hubkii aan laga qaadin yaansaan la yeelin runtii arrintaas ayada aniga waxaan u arkaa yani kalsooni xumo idin soo wajahday waaye tada kale waa ladin lugooyay shacabka inaan la hadlan rabaa maanta oon u sheego shacabka Somaliland raggan aad madax ka dhigateen markii safar ay soo aadaan yani mar walba safarkooda waxay ku soo beegaan waqtigii madaxda qaranka Soomaaliyeed ay safar aado si dhuumalaysi bay ugu tagaan ayaan dhawad Muuse Biixi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ugu tagay ninka musharax idin ah madaxweynaha qaranka wuxuu ugu tagay Addis Ababa ugu tagay codsi buu u jeediyey wax badan oo idinka aanan ogeeno afkana waa lidin cadeeyaa oo shacabku waxaa la leeyahay waa go'nayo aqoonsi baan helaynaayo saan baan noqotayo yani waa dadka dad oo yani riyo maalmeed oo يعني قف مالين عطريوضي بي لمد يهينو يعني وحي كو حدلان مدحدودي نمينك مدحنimada sheegto hadaladoodii marka dib ugu laab dadkii waa isku dhaxyaan hadda yaan dhawad waxaan maqlaay yani Ethiopia baa dekada berbere shar baan ka siinayna iyo saam war dekada berbere weynaan badna yaa Ilaahay yaqaano dekada berbere yani horta waa dhul Soomaaliyeed waayo dhul aad bixin kartaan ma ahan waxaad xaq u leedihiin ma ahan Ethiopia waa tii ay idin diiday oo hataa yani muxuu ahaa oo idin sheegtay inaad Soomaali ka mid tihiin oo yani maanta dad goy karo oo meel iska soo saari karo in aadan ahayn horay bay idin ku sheegtay Ethiopia runta idin sheegtay ra'iisul wasaarihii Ethiopia baad mar weeraraysaan waxaad leedihiin haddii Soomaali ay midowdo dagaaladii siman baa dhacayo dhibaato badan baa dhacayso ninkan Maxamed Siyaad Barre adeer u ah saan buu yahay war ninkan Maxamed Siyaad Barre adeer ha u ahaado yani muxuu ahaa waa nin Soomaaliyeed waa Siyaad Barre Allah u naxariisto Ilaahay qabrigiisa waasax ugu dhigo waa dhintay yani inaad yani waanu lagu soo duulayaa iyo haddii hubkan oo qabateenta war cid idinku soo duulaysa malaha yani dad markii rajo laga leeyahay oo rajo iyo dadnimo iyo يعني عبسي لغا قبو ايا لا بونبونيا maalmahan wax idin soo raadinay meed aragteen shir baa dhigi jiray waagi hore wada hadalada la furo saan hala yeelo turki hala sugu tago meel hebla hala sugu tago saan warhaade ayaan dhawed mar walba wada hadaladii markii dawladii ka horeysay maalin walbo يعني waxa way waxaad ahaadeen oo dad laga warhayo oo in wada hadal la galo oo maanta dib keeni karo ayaa la din maleynay ya la yanfa wax nacfad keenaysan adduunyada Soomaali gudeed aad keenaysan malahan wax yaani maanta to umada Soomaaliyeed oo dhimi kartaan malahan marka dad la hayeysin karo in la din hayeysiyaaba qalad ahayd farmaajin aad buu mahadsan yahay inuu yiraahdo lakum diinukum waliya diin inuu yiraahdo runtii madaxda qaranka waan ugu mahad celinayaa taas ayada maxaa yeelay yani dad oo yani dadka markii oo dad xil qaadi karo ay yihiin baa la hadli karaa la gorgortami karaa umad yani muxuu ahaa saqiirkeedii iyo kabiirkeedii yani hadaf oo uqdud xambaarsan
يعني waxaan yani been xambaarsan 24 hours ay ku sifoobeen inay been keliya ay soo tabiyaan ayaan dhawid waan idin sheegay baan umaleynaya waxay soo aruuriyeen nin masaakiina ayaa wuxuu ka keenay meel oo tagwajaala la yiraahdo keliya fara badan iyo beer oo waagi horeba geen jiray hoteeladan Hargeysa meelaha ku yaalo ka iibin jiray intay qabteenba waxay yiraahdeen keliyihii baa dad Somaliland ah koonfurta kala baxday bay dhaheen ya markii dambe ayaga isla yaabay 5,000 6,000 10,000 oo kiliyood oo 10,000 oo qof ruux 10,000 maba dhama ayaga ma dhamaan 10,000 sama Somaliland 10,000 ma dhanyiin ma dhama 10,000 hatta 5,000 ma dhama aniga say ila tahay xaqiiqiyan waydiya yaan la kala xumaanin ma garad yaan la kala xumaanin aniga runta sheegaya Somaliland dadku ku nool يعني 10,000 way gaari lahaayeen hadii lagu daro yani samaroon maba ogolab ma wala tusi karab ko hadii dhul baantaha degan sool iyo sanaag iyo yani goboladaas degan hadii lagu dari lahaan ma ogolo idin ma raba ma qasbaysan qasab xoog ma kuma qunine kuma warabaane maxaa daba taagantahay aye marka dadku ku nool Hargeysa iyo Burco qeyb kamid ah يعني مية قاري كلام طبعاً ما قاريان ما قاريان يا ما قرأت مركو عقدودان إيو بلايدان إيو لباتوين كان إذنكم با إذنكو هبسد إلهي با عقدودان إذن قليي مد إذن كبحي السنة معهم داد إلهي أنكار كردي باتين يا أنكار با إذنكو دعضي ilaa iyo waqtigii gobonimo doonka ilaa hadda laga joogo ayaa meel aad u socotaan baa la garan waayay ma garad meel aad u socotaan waa la garan waayay qabababababa dood iyo dacwad uma la taagantiin meel walba meel kasto waxa waaya hadaad joogtaan ayaan dhawid meel meeshan ayaa waxa ka dhacday xaflad baa ka dhacday magaalo oo ani aan deganahay ayaa xaflad ka dhacday gabdhaha marka waxa la yiri xafladda ayada ahayd waxa lagu soo bandhigay cunooyinka ummadda Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan baa lagu soo bandhigay waxa dhacday cunadii ayada ahayd wala waxay yiraahdeen bal sambuuska inta badan iyo biscuitka ayaga soo diyaariyay kuwa waagi hore dhihi jiray oo Somaliland baan nahay oo saan baan nahay oo calankan beenta guryaha iyo meelaha u sursuran ayaa xafladii wixii soo diyaariyay markii meesha la tagay meeshii booliis baa joogo maamul dawladda Sweden hal calan bay aqoonsantahay Soomaa hiya geen kara waa ani waan u sheegay dad geysaan wad xirantihiin baan dhahay xaflad Soomaaliyeed waa Soomaaliland hal calan bay leedahay state loogu waa Soomaali baa la yiri magaca Soomaali Somaliland lama dhihin Puntland lama dhihin Koonfur Galbeed lama dhihin baashi xumeed ii sheegay adiga Jubaland lama dhihin waxa la yiri Soomaali baa la yiri xafladda Soomaali baa leh Soomaali mar haday leedahayna hal calan bay leedahay oo caalamku og yahay booliiska halkan joogan way og yihiin ya laakiin inaad hadda noo surtaan oo Somaliland baan nahay iyo Hargeysan kiimaanay iyo wax shaqeynay waa u diiday ma garat wallahi waan u diiday waa arintaas ayada waxaan dhahay wax soconay ma anda ma garat barnaamijkaas waa waxa idin iska dhaadhicsan way arimaha soo kala guryihiin iyo meelaha ku haystaan dhahay meelaha oo publicada iyo ummadda meelaha ay ku wada hadlayso iyo meelaha caalamka dadka jooga ay ku wada shirayaan iyo munaasab ma aha inaad keentaan yani aqoonsigiin iyo wixiina si kala qaab kale wax ku raadsada qaababka kale aroosyadiin iyo xafladaha idin gaar ah hoolalka idinka khaas ah u ijaarataan bal waxaad sureysaan suran dhahay laakiin meeshan waa meel ummadda Soomaaliyeed lagu cazumay waaye Soomaalina yani meeshii lagu cazumo calanka aan buluug ahayn oo shanta xidig lahayn laguma taagi kara ana personal ahaan u dhahay ma garat otherwise hadda iswal waashaan barnaamijkan booliiska ka jawaabayaan booliiska oo meesha joogo hoolkaas wixii ka dhaco mas'uuliyadaas booliiska qaadayaan wallahi way dudubteen jawaabkooda ay gashteen wixii way laalaabeen yani waxay ogaadeen inuu meesha ka soo reensama قلت والله على فيسبوك هاي قصة وين أدور راليا قف كان لي هذا محمد عبد القادر لي هذا وحي فكر كذا هوس صغر ما قرأت يعني وحاول ومضى ويقرب من دتكو حدي يعني بين وإسخياميين بين بالسوشيء وحبال سكوبوري وحان جرين وحان سعونين
mar lafadeed oo ayaga dadkii axmaaradu laysay bay soo aruuriyeen hataa aniga marmar oo kale markaan waxaan ku fikiraa in yani muxuu ahaa lafahan aad ujeedaan yani waxaan u malaynay qadkanaa furi doono laakiin hadda maaha nin walba wixii oo aragtidiisa wuu ka hadli doonaa iga joojiya muxuu ahaa inaad hadda soo wacdaan maahan maxaa yeele barnaamijyo muhiima rabaa inaan yara taataabto haduu ilaahay ya yani waxaan la yaabanahay marka dadku markii yani been ay iska dhaadhiciyaan iyo waxyaaba aanan u soconaynin oo yani muxuu ahaa maanta waxaan isdhihi karnaa aniga xaqiiqiyan waxaan la yaabay cidan maamulkan sheegatay ee somaliland la baxday wax badan baa ka qaribin yani marmar oo kale waxaad ismooda dadkan ma khamri madaxdan ma khamri bay soo cabtay ma dad waalanba ma dad fayowba qof walba waa iska soo istaaga uu hadlaya meel buu la soo istaaga aflagaadii cay qof weyn waya oo xisbi ucud iyo hebel iyo balaayo yani muxuu ahaa oo aan la kala aqoonin oo yani xisbiya intay furteen waxay leeyihiin saasaanahayo adduunkiibana la aqoonsadayo war haddii xaafad yar hadda aniga for example xaafad yar oo yani muxuu ahaa kamuun ama degmo yar yani gobernatori joog hadduu yani u yirahdo waa ku aqoonsaday wixii bay lasoo shirtagayn dadkii bay u sheegayaan lafihii hadda oo maalmahan ay ku hadli jireen hadda markaan ayaan dhawid aan ka hadlay wixii ka dambeeyo wixii inay run yihiin way garawsadeen aniga ayagaa ii sheegay rag ayaga kamid ah oo halkan joogo oo madaxdii waagaas dowladii soomaaliya ka tirsanaa ciidama yani muxuu ahaa oo soomaaliyeed halkan joogay baan la kulmay talyaaniga rag baan kala kulmay switzerland aan kala kulmay madaxdii waagaas ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed oo ay axmaaradu ay u adeegsadeen oo ayagii qoysaskoodii ay ku laayeen yani muxuu ahaa haradii berjeex la dhihi jiray ciidamadii guutidii 26aad la dhihi jiray ee berjeex ee deganeed yani muxuu ahaa waqooyiga ma arkin muxuu ahaa ay sheegay hargeysa deganeed isla ayagii baa laayay axmaaraa laysay ayagii baana ku adeegsaday dadkii xabaalihii rag ayaga kamid ah ayaa meelkooga mar walbay soo baxayaan anakaana la laayay soomaali hashalila kama suurtoodo horeyn waan u sheegay inay maatalayso soomaali ciidamadeedii meel walba ha joogaan hataa idinka oo hadda somaliland aada la baxdeen ood leedihiin oo yani muxuu ahaa waxaad ku hadlaysaan iyo wixii afkiina kasoo baxaya aanan ogeyn hataa idinkama suurtoodo inaad maata adlaysaan hasha lilah koonfur kama suurtoodo dhaqan xumadaas oo kale kama suurtoodo sababo badan aan ugu suurtobin maanta insha allah inaan idin sheega rabaa haduu ilaahay idmo inaan idinka yani koonfur idinka gobsan tahay idinka fiican tahay idinka nasabsan tahay idinka damiir fiican tahay maanta rabaa inaan idin sheego in yaraan taabto yani yaan loo arkin inaan aniga yani muxuu ahaa ka hadlay yani muxuu ahaa qabiileysi ahaan uma hadlay aniga runtaan sheegaya qofkii marka waxaa waaye dad fara badan oo asxaabteeda ay leeyihiin yani niyahow adiga dadka maxaa saas ugu durta oo daaragti maxaad ugu gashaayo saan yani dadkii haddii daaragti aan wax laisugu sheegin yani sarbeeb wax badan ba wax isugu sheegnay soomaali waxba kuma qaadanayso soo saas maaha inaan runta isu sheegno ayaa muhiim ah magarat ani runtaan inaan ka hadlaan jeclahay yani mar haddaan ahay ismaaciil boolio alla dila